بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، maantay waxa ay sheekadeedu ku wajahantahay weli waa gobolada sida muuqata baabuurtii badneed ee xamar ka baxaysay waxay keeneen inay cudurka ku faafo ayaga welina goboladiiba hadda geedkiisu aad ugu jira shabeellada haddaan idhaahdo dowlad goboleedka koonfur galbeed, puntland, hirshabeelle, galmudug, intaasba waa ku jira. banaadirna awalba barinkiisu ahaa. haddii marka baabuurta la raacayo aan si nidaamsan loo raacin oo maaskigii la qaadan oo aan baabuurtii la isku riixo leela calawiga iyo baraadada iyo baxaya haddii la isku riixo hadda cudurkii saas ku faafaya. cudurkii markuu meeshii tagana dadkii ayaguna taxadar lahayn oo taxadar sameynayo ayagana ku faafaya. warka jira waxay tahay haddii aan ku dhiirigelinayaa dhammaan maamul goboleedyada waxay tahay inay meesha isolation ka sameeyaan, meesha karantiinkana ay sameeyaan, baaritaan xoog lena ay bilaabaan oo ay baaritaan xoog leh ay qaadaanna waa loo baahan yahay si ay arrintu loo ogaado sida uu faafo iyo sida uu yahay. dhalinyaradu weli waa iyadii waxa baabuurka aan fariinka lahayn saaran, waa iyaga waxa hadba dhinac u leexinaya, waa iyaga waxa aan joojinayn oo dhagxaanta u dhigan. hadda dhalinyaradii waxaa laga rabaa ama gobol ha joogo ama caasimadda ha joogo ama magaalo madaxda ha jooge, waxaa laga rabaa inuu ay dadaalaan oo ay naftoodana badbaadiyaan, waalidkoodana badbaadiyaan, qarankana badbaadiyaan. qodobka kaloo jira maanta xoog inaan saaro shalana aan soo taabto waxay tahay qodobka qaadka. walaalayaal ha la ogaado qaadka marka la soo gurahayo dad aan gacnahoodu nadiif ahayn oo in cudurka qabaan laga yaabo ayaa soo dhoofiya, ayagaa soo xirxira, ayagaa isku soo dubarida, ayaga ayaa maantaasoo dhan meel si loo qarinayo waa ogahay in la qarinaye sida loo qarinayo meelaan nadiif ahayna lagu qarinaya oo aan laga malayn karin. hadhow markii la keenana gacmo badan u maraa, qof walba waa iska fiirinaya, kan xagga ka taabtay, kan xagga ka taabtay, ayadoona gacnihii oo dhan waa gaarayaan. marka dambe la cunahayana haddee asaga inta la kariyo lama cune ceerinkiisaa lagu cunaa. hadda hadalkaas waxay keenaysaa marka cudurka covid inuu intaba ku faafo, inuu ku faafo. ilaahay marka waxaan rajeynayna Soomaalidu ay ka maanta opportunity fiican u haysataa suusa cudurka ugu faafin asoo awal dhibaato bulsho lahaa, dhibaato caafimaad lahaa. hadda haddii ku sii darsanto midkan safmareenka oo dhibka badan la keenayo dilaaga oo dadku waa yeelka iyo dhalinyarada naga haleelaya, haddii uu ku sii faafo waa garan karaysaa intuu orodku iyo xawligu ku socon karo soo dadka dhan wada gaara. taas waa qodobka meesha yaala. qodobka kale meesha jira waxa weeye haddee dhalinyaradii banooni la wada ciyaarahaya, waa la wada ordahaya, waa la wada sheekaysanaya, garbaha la haystaa, waa la showrahayaa. waxaasoo dhan ogaada waa waxa cudurka lagu kala qaado. intaasba waa inta cudurka lagu kala qaado. warheedhahaya maaskaradana qaata, kalana durka halkaas ka wada sheekaysta. telefoon waxaan waab la yaabi jiray telefoonkan smartphone markuu soo baxay ayaa waxaa la arkaya wiil iyo gabar shukaansanaya, wax iska shukaansanayaan meesha wada hadli lahayd waa isla fadhiyaan, makhaayada wada fadhiyaan ayay smartphone ka ciyaareen. bar maanta hadda fashion-ka waa saase, smartphone ka sheekaysta, 2 mitirna isku jirsada, maaskadeena qaata. waxaan ku celinayaa maaskaradu waa quruxdaada, waa fashion, waa badbaadadaada, waa badbaadada naftaada, waa badbaadada bulshadaada. ha noqon dilaaga daahsan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.